بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوما IT tutorials iyo cashirkii 29 ee Python-ka cashirka wuxuu ka bilaaban doonaa haduu alidmo exception handling sidee loo sameeyaa Python-ka exception handle maxaa la dhahaa marka koowaad intaanan programka qorin waxaan theory ama hordhacayna waa maxay exception handling. An exception can be defined as waxa lagu qeexi karaa inuu yahay unusual condition in ay dhacdo xaalad aan caadi ahayn programkaaga ay soo gasho. tusaale qulqulka programka sida uu u shaqeynayo in ay wax ka soo dhaxgalaan inuu programkaas shaqeey waayo ayaa exception la dhahaa marka taasoo dhalin karta marka resulting in interruption inay ku sameyso ama ay soo dhaxgasho the flow of programka qaabkii uu socdo inay soo dhaxgasho. Whenever an exception occurs, mar walbo exception ay dhacdo, the program stops. Programka marka waxa uu joojiyaa the execution inuu shaqeeyo. And this code-ka programkaas meesha uu ka dhacay exception-ka inta ka dambeyso ma shaqeyn doonto micnaheeda meesha ayuu ku istaagi doonaa. Python-ka marka waxa uu nasiyaa qaab aan ku xalino marka way to handle exception-ka si code-kii programka uu shaqeeyo without an interruption asagoo wax ka soo dhaxgelin ama error ama exception wax ka soo dhaxgelin. maxaa dhacaya marka hadii aanan xalinin? If we do not handle the exception, interpreter-ka ama kan turjubaya code-ka ay u bedelayo inuu programka shaqeeyo ka dhigayo ma uu ogolaanayo code-kan inuu sii socdo meesha ayuu ku hakinaa marka. Exception-ka marka wuxuu u qaybsamaa Python-ka laba qaybood. Mid waxaa la dhahaa built-in exceptions kuwa Python-ka ayaa lagu keenaa oo ku dhisan asaga sameynaya exceptions-ka. kuwana user defined exceptions la dhahaa oo qofka user-ka ama programka isticmaalayo ama programkaas dhisaya ayaa wuxuu sameynaa exceptions-ka asaga sameynaya oo qoraayo. Python-ka provides wuxuu sameeyaa marka number of built-in exceptions-ka ayuu Python-ka asaga nasiyaa. sida tusaale ahaan oo kale standardka common standard exceptions-ka marka ka soo qaadano zero definition error ka mid ah, name error ka mid ah, indentation error ka mid ah. tusaale zero definition error waxay dhacdaa marka program loo qeybiyo by divide by zero. tusaale hadii aan soo qaadano dhaxno dabcan kan aan isticmaalayno application-kan aan isticmaalayno waa PyCharm. qofka u baahan cashiradii ugu horreysay ku soo sheegnay qaabka aan soo dejisan karno qof walba asoo community version ah oo aan muxuu ahaa wax lacag laga qaadanaynin website-ka PyCharm-ka kasoo dhigsan kartaa. Print markaan dhahno tusaale ahaan oo kale data ayaa waxaa leenahay waxay noo daabacdaa number ayaa waxa u qaybinaynaa tusaale ahaan oo kale 4 ayaa waxa u qaybinaynaa 0 ka soo qaado kale waa wax error soo saaraya sababtoo ah programka 4 0 hadaa u qaybisid qaybtan hoose u jeedid waxa ka soo baxa error taasoo ah zero division error exception ayuu soo saaraa taasoo ah division by 0 ayaa dhacay oo waxaan waxa u qaybisay numberkan 0 ayaa u qaybisay so waa ina marka afahdid exceptions-kan in adiga aadan sameynin oo Python-ka asaga uu ku sameeyay hadii markaas error uu dhaco uu soo saarayo. Name error ka mid ah name error ka waan naqaana inta badan markaan tusaale ahaan oo kale hadaan dhahno print waxa ii daabacdaa age programka hormu u yaqaan waxa uu yahay hadaa daabacid waxa uu ku leeyahay name error ayaa dhacay name age is not defined exception ayaa la dhahaa marka exception-iska kuwaas waa marka. Indentation error ka mid ah hadii indentation-kaaga aqaladid tusaale indentation-ka waxa waaye hadii tusaale ahaan oo kale if hore soo qaadanay waxa tiro kale ka soo qaado kale if data rabta inaad daabacid ama true aan iska dhahno saan u gudbino if true waxay noo daabacdaa print hi ayaan dhahnaa. Print hi iyo if tan waxay isku qoran yihiin same indentation ay ku qoran yihiin waana qalad. If tan indentation-ka ama gudaheeda waa in block uu ka sameysmaa block-gaasna data ay gashaa. hadda waxaan sheegnay if true and true dan kaliya waxay tahay macnaheedu mar walba way gudbaysaa macnaha if false data ku daabacayso. so hadda programkan daabacno error ayaa soo baxay oo ah indentation error sa ujeedid qaybta hoose expected an indented block after if statement on line 1 line-kan koowaad. if statement-gan waa in print-tan gudaha ay ku jirtaa oo if tan ay ku dhex jirtaa waa block gudihiisa waa in if the block-geeda waa in aad datadii ku qortaa oo aadan block-gan banaankiisa ama aadan ka bixin. haddaan block-gan ka baxno indentation error ayaa dhacaya marka laakiin gudahan haddaan ku qorno hadda programka uu noo daabacaa
high ayuu noo soo saaraa qaybta hoose ka arki kartaa. So hadda indentation waa sameynaa oo ah lenkan wax walbo inta imaanaya waxa waaye indentationka ama blogga ifta ku jiraan. len kastoo waxaan ka baxsan blogga ifta kuma jiraan. sidaasaa marka indentation error la dhaha marka. So kuwa marka exceptioniskan Pythonka asagaa sameynaayo. Zero division error waa soo sheegnay, name error waa soo sheegnay, indentation error, input output error iyo end of file error. kuwaana waxaa inta badan markii inputka ama outputka oo kale failed ay dhacdo ama error ay soo saaraan, kana waxaa ku arki kartaa asagana fileska markaan qaadan arki doonaa inta badan. kuwa marka waa standardska ama common muxuu ahaa exceptionska caadiga ah. The problem without exception maxay tahay marka? As we have already discussed, the exception is abnormal condition ayaa la dhahaa. macnaheedu waxay tahay xaalad aan caadi ahayn programkaaga inay soo gasho, taasoo hold ku sameynaysa ama joojinaysa execution of the program. Suppose we have two variables. waxaa la tusaalaan wax ka soo qaata laba variable ayaa haystaa. tusaale hadda aan soo qaadanayno kale waa a iyo b, which takes input from user. userka ayaa daatada ka qaadanaysa marka ugo. Perform division qaybin ayaan ku sameynaynaa valueskan. haddii waxaan dhahnay userka uu geliyo 0 as denominator maxaa dhacaya marka? haddii tusaale ahaan oo kale waxaa tiri qaybtan ugu horeyso a is equal to int, waxa u bedeleynaa wax walba user ka qaadano ayaa integer ka dhigaynaa sababtoo ah string ahaan ay user ku soo qaadanaysa daatada. qiimaha a ayaan user ka weydiinay, qiimaha b ayaa user ka weydiinay. laba value inuu geliyo waa marka labadaas value ayaan rabnaa inaan isku qaybino. ka waran haddii b value-geeda oo aan u qaybinayno a-da haddii uu 0 user ka geliyo, error ayaa programkeena ka soo baxaya, taasoo ah zero division error aan kasoo hadlayna kasoo qaado kale. marka wax walba markaa userka data weydiinaysid waa in datadaas aad iska jeegaraysid, exceptions inaad samaysid si datadaasi hadhowti aysan kaaga saameyn programka inuu shaqeeyo. programka hadda aan soo sheegno oo kale syntactically ama syntax ahaan programka qaabka u qorayaan waa sax, laakiin waxa uu soo tuuraa error ayuu soo tuuraa. maxaa yeelay unusual input hadduu userka wax aan hore aadan u rabin inuu geliyo ama 0 oo kale oo denominator kaaga geliyo, programkaaga waxaa imaanaya error ayaa imaanaya. So that kind of programming wuxuu noqon karaa marka may not be suitable ayaa la dhahay, macnaha ama not recommended in userka wixii aad weydiisid aadan iska jeegareynin. programyada noocaas ah lagulama taliyo qofka marka uu sameynayo projectska, because these projects are required uninterrupted execution. marka projects sameynaysid executionka programka ama inuu shaqeeyo waa in uninterrupted ay noqotaa, uusan wax kaasoo dhexgelin. That's why exception handling uga ciyaarto essential role, kaalin muhiim ah in handling in ay xaliso these unexpected exceptions, waxyaabahan aan la filaynin inay dhacaan. We can handle marka exceptionska maxaa sameeya qaabkana uu sameynayna. sidee loo xaliyaa? waxaa la dhahay waxa u xalin kartaa exception handlingka qaabkan try except statement. try except statement waa qaab aad ku xalin kartid exceptionska ama errorada in programkaaga unusual condition inay ka dhacdo programkaaga uu istaago. If the Python program, haddii programka Python contains uu ku jiro suspicious code aad ka shakisan tahay that may throw inuu soo tuuro an exception, we must place that code in the try block. waa inaan codekaasi dhex dhignaa blogga try. The try block must be flowed. Try block waxaa raacinaynaa marka except statement ayaa raacinaynaa which contains oo uu ku jiro a block of code, code uu ku jiro kaasoo execution uu sameyn doono if there is some exception in the try block. try iyo block iyo except labadan waa marka trydan waxaa dhex dhigaynaa marka codeka aan rabno ama aan ka shakisanahay inuu error naga dhalin doono. exceptganna waxaan raacinaynaa statement aan rabno execution in lagu sameeyo haddii error meeshaan uu ka imaado. tusaale ahaan haddaan sameyno, haddaan program qorno waxaan leenahay programkan waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale try statement ama try caadi aan qoraynaa, kabacdi waxaan raacinaynaa bloggii tryda. waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale userka waxaan ka qaadanaynaa daato sida data arkayso kale daatadeeda ayaan user ka qaadanaynaa. waxaan leenahay userka input waxaa gelisaa qiimaha geli, enter waxaa gelisaa value of a, qiimaha a geli, userka ayaan weydiinaynaa. ogow
input waxay soo saari doontaa string waaye daatada ay noo soo saarta anaga waxa ka rabnaa integer ayaan ka rabnaa so maxaa sameeynaa marka waa ina integer aan dhahnaa meeshan ina integer ka hormarnaa ama u bedelnaa functionkan in ay noqoto int ama integer waa inaan ka hormarnaa ilaa sababtoo ah waxay noo soo saaraysaa string ay soo saaraysaa waxaan sidoo kale qaadanaynaa userka waxaan ka qaadanaynaa data kale taasoo ah datada b inaan user ka qaadano datadaas b da user ka qaadanayna waxaa leenahay b dan waxaa gelisaa value of b geli ayaan leenahay labadan data marka isku qaybinaynaa waxaa leenahay c waxa u qaybisaa a oo loo qaybiyo b marka waxaan iska ilaalinayna waxay tahay haddii userka uu geliyo datada b haddii 0 uu siiyo userka sababtoo ah qaybinta way failed ayay noqonaysaa fieldkaas marka imaato waxay ku qoran tahay try block ay ku qoran tahay try block marka ay ku qoran tahay maxaa sameeynaa horta marka hore aan daabacno datada c waxa leenahay print resultiga waxa uu noqonaa result waxa uu noqonaa ayaa leenahay c inoo daabac laakiin maxaa dhici doona sidan datada ma ahaanayso hadday sax tahay datada sidan ayay daabici doontaa laakiin haddii userka uu geliyo b value-ga hadduu 0 geliyo error ayay soo tuuri doontaa programkan si errorkaas uga hortagno trydan waxaan raacsiinaynaa exceptdan block kale ayay leedahay waxaa leenahay print waxaan ognahay marka annaga errorka meeshan kasoo baxaayo sababtoo ah userka haddii uu geliyo 0 qiimaha b haddii uu siiyo oo aan u qaybinayno eeda qiimahan inaan 0 loo qaybin karin waa ognahay marka waxaan raacinaynaa marka waxaa leenahay cannot be divided with 0 ama 0 iska dheer okay 0 ma u qaybin karno except statementigan wuxuu shaqeynaa kaliya haddii error meeshan uu kasoo baxo haddii error uu soo bixin ma shaqeynayo tusaale programkan haddaan hadda dhahno run haddii aan programka dhahno ama programkan aan shaqaysiino qaybta hoose waxaa ujeedaa enter value of a qiimaha a geliya inaan lagu dhaho tusaale 10 aan gelinay haddana waxa uu ku weydiinaa qiimaha b 5 ayaan gelinay 10 haddii 5 loo qaybiyo waxa kasoo baxayso waa 2 resultiga noo soo bixi doono saa ujeedid resultiga waa 2 laakiin haddii ka waran meesha 5 aan gelin lahayn haddii aan gelino 0 maxaa soo baxaya tusaale enter value of a 10 aan gelinay userkii meesha b di uu gelin lahaa qiimo kale ama qiimo oo wax kale ayuu gelin lahaa 0 ayuu geliyay errorkan adi marna ku xisaabtantay haddii meeshan uu denominatorkan uu 0 ka dhigo userka accept ayaa u samaysatay enter markii aad ahayd ma shaqeyn doonto resultigan ma soo bixi doonto automatically programku wuxuu usoo boodi doonaa except muxuu ahaa block ayuu usoo boodi doonaa kabacdina waxa uu sameynaa cannot be divided with 0 ama cannot be divided 0 ayuu ku dhahaa looma qaybin karo macnaha 0 sidaas marka exceptions ayaa ku samaysay oo wax walbo intaan programkan ka dhaca dhexdiisa ah si caadi hadduu u shaqeeyo wuu shaqeyn doonaa haddii laakiin error uu soo saaro in errorkan aadan u ogolaan programka asaga inuu istaajiyo laakiin except blockkan aad statement ku qortid statementigaasna ay userka tusisid meeshaas in error ka jiro in programkaas markaas oo userka dib ugu laabto marka try and run block qaabkaas ay loo sameeyaa marka kana waa isla tusaalihii oo kale we can also use marka waxaan sidoo kale isticmaali karnaa else statement saa ognahay else statement if iyo waxaa la isticmaali jiray iyo loopiskana waa la isticmaali karaa try except block ayaan la isticmaalinaa tusaale else statement wax kale ma ku qabanayso haddii aad rabtid tusaale ahaan oo kale trydan block kor ku dhex jira waa uu shaqeynaa haddii error oo dhacana kan ayaa shaqeynaayo marka uu kan shaqeynaayo programkan uusan error jirinna exceptdan ma shaqeynayso else waxay idan ka saacidaysaa haddii aad dhahdo tusaale ahaan oo kale else print oo kale waxay la shaqeynaysaa trydaas ayay la shaqeynaysaa mar walbo trydaas programkan uu si saxa u shaqeeyo else blocktana sidoo kale waa ay shaqeyn doontaa waxaa dhihi doontaa tusaale ahaan oo kale successful ayaa iska dhiganaa tusaale ahaan oo kale programku waa uu shaqeeyay camal ayaan ka wadnaa elsidaas waxay daabici doontaa mar walbo oo uu si sax u shaqeeyo bloggan try ku dhex jira laakiin haddii error uu soo baxo exception bisa shaqeey doonta programkan haddaan ran gareyno qiimaha ee geli qaybta hoose haddaan 10 gelino tusaale ahaan waxaad tan gelin kartaa kan kalena aan 5 gelino si sax ay u shaqeyn doontaa saa u jeedid resultiga waxaa soo baxda 2 ka bacdi intan waxaa ka soo baxda successful oo else blocktaas waxay la shaqeynaysaa trydaas ayay la shaqeynaysaa waa try except else
saddex waa marka else sidaas marka waxay shaqeynaysaa kaliya marka koodkan uu sax yahay haddii error meeshan uu ka jiro waxaa shaqeynaya except bis labadan kale ma shaqeynayaan tusaale haddii aan gelino 10 u qaybino 0 ka soo qaado kale meeshaas waxaa ka dhacaysa ujeedid cannot be divided 0 except bis ayaa la daabacay oo else ma daabacmayso marka sidaas ayaa marka waxa ku soo baxaa programka marka saddex block ayaa ku isticmaali kartaa try except iyo else programkan waa isla qaabkii marka the except statement using with exception variable we can use waxaan isticmaali karnaa exception variable ayaa isticmaali karnaa with except statement it is used waxaa lala isticmaalaa by using as keyword the object will return objectgaas marka wuxuu soo celin doonaa the cause of exception waxa exceptionkaas sababay tusaale fiiri marka hadda programkan haddii aan dhahno aan ka dhahno tusaale ahaan oo kale print bis aan qoro oo aan dhaho 10 waxaa u qaybiyaa 0 u qaybi programkan wuxuu isoo saaraa error ayuu isoo saaraa sidaan ku shaqeyn doona wuxuu ku leeyahay zero division ayaa dhacay oo ah errorka maxaa sababa marka waa kan marka cause of exception ka waa kan division by 0 hadda marka waxaa rabaa programka inaan raaciyo in uu errorka isoo saaro meeshii aniga aan qoran lahaa message aan usoo bandhigi lahaa userka messagekan meeshan ka soo baxaya in uu ka soo baxo programka qaybta exceptionka ama exceptioniska wixii sababay meesha uu soo saaro maxaan sameynaa marka inta ayaan waxaa leeyahay except markaan dhaho waxaan raacinaa exception kabacdi waxaan leeyahay as muxuu ahaa variable ayaa raacinaa variable e yaa dhigi kartaa tusaalahaan oo kale kan marka haddii aan tusaalahaan oo kale iska bixino waxaan leenahay print waxaa daabacdaa iidan daabac iidan wax kale makuu daabacaysa laakiin waxay daabacaysaa wixii sababay exceptionkan tusaale haddii programkan hadda sidaan ku shaqaysiisid oo userka ay geli aad tiraahdo datadiisa uu geliyo bidana uu geliyo wax qaldan ama 0 uu geliyo waxaa soo bixi doonto message ah division by 0 waxa u qaybisay 0 messagekan directly wuxuu ka imaaday pythonka gaar ahaan wuxuu ka imaaday exceptionistkaas wixii sababay ama cause of exceptionka ayuu ka imaaday waxaana ku store garaysan ida qaabkan ayaa u isticmaalaysaa marka waxa kale oo jirta qaab kale oo ayadana sameyn kartid tusaale ahaan oo kale declaring multiple exceptionska ina multiple exceptions sameynaysid tusaale except block ama block exceptiga ayaa waxa raacin kartaa waxa raacinaysaa bracket kabacdi waxa ku qoraysaa arithmetic error hadduu dhaco in exceptionskaas arithmetic error la soo bandhigo input output error haddii ay dhacdo in input output error la soo bandhigo idan waa raacin kartaa laakiin waa inaad qaabkan u qortid iska ilaali arithmetic waa ida capital errorna waa ido muxuu ahaa idana waa capital input output errorkana waa qaabkaas sidaas inuu idan u sameeyso waa sameyn kartaa qaabkan caadiga ah inaad adiga u soo bandhigatid oo muxuu ahaa exceptioniska caadiga ah soo bandhigatid oo sidaas aad u qoratid message-ka caadiga ah waa sameyn kartaa labadaas waa sameyn kartaa oo programkaaga caadi uu ku shaqeeyo waxaa jirta marka qaybta ugu dambeysa oo ah finally block try iyo except waa soo aragnay try except iyo else block waa soo aragnay tan ugu dambeysa waxa uu yahay finally block waxa ay tahay code mar walba shaqeyn doono haddii error uu dhaco ama haddii error uusan dhicinba intaan statement meeshas ayay ka hadlaysaa tusaale trydan waxay shaqeyn doontaa marka programkan uu sax yahay exceptdan waxay shaqeyn doontaa marka programkan tryda uu error ku imaado ayay kaliya shaqeyn doontaa else waxay la shaqeysaa mar walba tryda hadday shaqeyso way shaqeynay haddii si shaqeyn ma shaqeynayso laakiin waxaa jirta finally block waxa waaye haddii mar walba code aad rabtid muhiim inuu ku yahay in uu shaqeeyo haddii error uu jiro ama error uusan jirin tusaale print ayaan leenahay dhexdeeda waxaan ku qoraynaa message oo ah always works tusaale ahaan oo kale mar walba way shaqeynaysaa aan ku qoraynaa programkan haddii aan dhahno rangaray haddaan dhahno qiimaha aan gelino tusaale ahaan oo kale value oo aan dhahno waxa u qaybisaa 5 oo kale u qayb haddaan dhahno qiimaha waa u shaqeysaa u jeedid resulti waa soo baxay 2 ilaa wax error ma jiro exception code ma shaqeyn doono blogaas successfulka waxay ka imaatay else oo la shaqeyso mar walba try la shaqeyso always works kan message kan waa key finally oo ugu dambeeyay kaas mar walba oo shaqeyn doona hadii error ma jiro waa u shaqeynaa hadii error uu jiro xitaa uu shaqeynaa sidoo kale tusaale ahaan oo kale 10 hadaan u qaybino 0 maxaa dhici doona
toban zero haddaan u qaybino bloggan ma shaqayn doono, else ma shaqayn doonto, exceptionkan ayaa shaqayn doono oo ah cannot be divided zero. sidoo kale final block idin waa shaqaynaysaa. final bloggan waxay u taagan tahay mar walbo in codeka programka ama meesha wixii muxuu ahaa programkaas iyadoo u dambaysa marka koowaad programka wixii mar walba ka koreeya ama tryda ku jira ha shaqayso, exceptionka ha shaqayso ama ya shaqaynin, programkan mar walba waa uu rangareysmaa ama execution ayuu ku soconaa haddii ay samaysid. waa final block, waana option ugu else naftirkeeda waa option. muhiimadda waxay tahay marka try iyo exception waa codeka aad ka shakisan tahay inuu error dhalin doono, try block ayaa mar walba la dhex dhigtaa. codeka aad ka shakisan tahay inuu macnaha messageka errorkaas ka hadlayana waxaa la dhex dhigtaa exceptionka. marka try, except, block ama statement waa qaabka loo samayn doono. intaa programmada samayn doono dhowr mara arki doonta anigoo soo qaadan doono. cashirkan marka waxaan ku sameynaa halkaas ayaan ku sameynaa. cashirka xiga hadduu alidmo waxaan ka bilaaban doonaa, waxaan dhan waa tusaalooyin. cashirka xigana wuxuu nooga bilaaban doonaa hadduu alidmo UOP ama object oriented programming classes iyo object sida loo isticmaalo. bila tawfiiq meeshaas ayaan ku sameynaa.